سليبان وحو عاديستي إنه دادك إسلام كا إهل كا أساقون وحبا هاي أو مران أنو وحانو أقانا سلطان كمران سلطان وحا لغو يقانا إنو دادك وروريو إنو دادك اسكو كينو إنو مركا داركتبه هريريه سلاياعيو إن مركا داركتبه غاريغي سبوحو إن مركا داركتبه غوريغي سبوحو إن لغو urursan yahay إنو dad dhaq yahay إنو mid dadka wada yahay nin marka daragtaba kaligii in rooraya sidii bahal xoolo laga reebay anigu asaga mooyaana horta maan arag waxa la yiri faras ku jira beer ayuu dameeru yimi deetana markaasuu dameerkii baa yiri war waan gaajoonaya faras oo naftay hayso waxba kuma nooliye inaad beertan barwaaqada ay cusubkaayad ku jirtaan kula daaqa buuri wuxuu yiri inaad way wanaagsan tahay waan kugu sii dayn la beer cusubka iyo nimcada aan dhex joogan cunaaye waanaad aamusahayn oo imka markaa dheregto ayaad qaylinaysaa halkan baha la yiraahdo libaax baan ku soo maray buuri halkan maxaan ku raadey beerta agtiisa de markaa dheregtaad qayliso labadeynaba wuu istul dhigaya inaad wuxuu yiri wallahi inaanan qaylinahayn markaan dhergo waan iska aamusayaaye inaad aan kula daaqo waaye hadii aad aamusaysa daaq buuri oo markuu dhergay nimcadii cunay buuri wallahi waa lay hayaa oo uu neefsaday dameerki wallahi waa lay hayaa buuri oo waan maxaan ku dhahdaayo waa lay hayaa war inaad aamus buuri ilaahay baan kugu dhaariyay xijiso aamus buuri oo xaqaylinina aamus buuri dabeetana moo aamusine wuu qayliyay ilaahayna sidoo quraanka ku sheegay in ankara al-aswaat la sawtul hamir deewaati la yiri cod la maqlo oo waxa loogu nicib yaanba ugu karaahiyeysan waxa weeyaan codka dameerka dabeetana markuu codkii maqlay libaaxi wuu soo toosay oo beertiba uu soo dhacayo labadiiba wuu istul dhigay oo halkiiba labadiiba ku dhinteen waxa weeye Saleebaan ninka kaasuu ka dhigan yahay dameerka aamusi waayay ee markii uu dhergay qayliyay ee faraskiina galaaftay libaaxina uu dilay buu Saleebaan ka dhigan yahay faraskaasi wuxuu wax weeye beerta daaqayay nimanka kulmiye ee hantidii ummadda ee qaranka cunaaya Saleebaanna waxa weeyaan dameerka markuu dhergay aamusi waayay sidaas aanay ku wada dhinteen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan anigu halkan ka siinayaa xaal baan anagu ka siinaynaa haday sheekh tahay sheekh baan ahay hadaan aqligii maxaan ku dhahday beeshu Saleebaan ka soo jeedo odaygii la bidaayay iyo aqligii la bidaayay ay tahay meel ka dambayso oo hadlaysaa ma jirteen inaanu hadalana maanaan jeclayna waxa nagu kalifay mas'uul qaran oo naana ku haysana ra'iiskii amba madaxweynihii mustaqbalka ee ummadda marka maalin walba daayeer ciyayo oo ka daba qayliyo oo ka daba caayo kalifaadaas miidiyaana hor keentay inaanu miidiyaha nimaadnaanu ka hadallo maanaan jeclayn kitaabka minhaajki wuxuu leeyahay qiil iyo qulti buu kala leeyahay waxa weeyaan hadduu Saleebaan aamusi waayay waxaanu halkan kaga hadlaynaa anagu waxa weeyaan qultudii ummadda Soomaaliland bari iyo galbeed iyo dhexda xaal iyo boolajiis baanu ka siinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirana xaal iyo boolajiis baanu ka siinaynaa ciisi maxaan ku dhahdaayay Cabdiraxmaan libaaxa wuxuu ka dhigan yahay labadaba dilay oo libaaxna wuxuu ku yahay qabiil maahe wuxuu ku noqday taageerada iyo kalsoonida iyo sharafta uu ka haysto dhammaan populationka Soomaaliland boolajiis iyo xaal aan u gudbinaynaa hadaanu beesha bariga hargeysanahay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro oo laga aflagaadeeyay miidiyaha dad aan u qalmin ay ka aflagaadeeyeen halkan aan uga diraynaa maxay hayday boolajiis iyo xaal baanu halkan uga gudbinaynaa intaas waa inta kale ninka la yiraahdo habaar wuxuu miidiyaha ka yiri isxaaq beesha isxaaq la yiraahdo u taliya ana iga amar qaadanaysa ana caynkan waxa suu miidiyaha kaga hadlay waxa waan la talinayaa anigu wax kale oran maayo waan la talinayaa suldaan habaar waan la talinayaa waxaan kula talinayaa Muuse Biixi u sheeg Muuse Biixi intaad la faqdo intaa u sheeg laakiin miidiyaha isla soo taagay beesha isxaaq baan u taliyaa halkan ay farfadhiyaan waxa miidiyaha isla soo taagin been bay kugu noqonaysaa waxaan kugu daray dadku wuxuu gelayaa doorasho abaartan hadii ilaahay waxaan ka baryayaa in abaarta ilaahay naga soo furto oo roobku inoo jiilaaldo ilaahay intaasaan ka baryayaa marka ilaahay ina xil furto oo abaarta inaga saaro doorasho la geli
gurigaaga kuwa jooga habaarow kuwa gurigaaga jooga isleeday mas'uul baad ka tahay soo aad ii garan maysid kuwaasaynu isugu imanaynaa haddaad i dhaafiso ood Muuse Biixi amba kulmiye u geyso geesi dhalay baad ma jeclin inaanu tiifiyada nimaadno oo bani aadmiga wax ka nidhahno waxaanu ku leenahay halkan waxaanu raa boolajiis ka siinana haddaanu nahay beesha Isxaaq Carre cid kasta oo ay khusayso hadalkii ninka habaar ka soo yeedhay waxaanu leenahay walaalayaal idin hadalkaas meel ka dhac buu yahay hadday xusbiga tay hadday Soomaaliland kornimo tay hadday Cabdiraxmaan tayba walaalayaal boolajiis ka qaata cid kula laba ah oo isa soo taagaysana ma jirto oo ninka raacsani maalintii dhaweydaynu ka erinay gurigii ninkii ciida gale ragii keeriyaa kamid ahaa cid raacda meedaan arag walaalayaal raalli ka ahaada lama qabne soo waa xignaadee waxaanu leenahay Muuse Biixi hal baan leenahay Muuse xusbiya dadku waa u siman yahay waxaad ogaataa oo aanana ballan kuugu qaadaynaa oo dhaboobi doonto dhawaana jawaabteeda aad arki doontaa hadalkaa uu leeyay kaa kula taagani eed maalintii dhaweydna tiri waryaan la caayin xusbiga hortaada ka caayay ayadoo beeshan Isxaaq Carre aad ina yar ka weyday baad arki doontaa Muuse ballan taasaanu kuugu qaadanaa dhawaan baana jawaabteeda aad la kulmi doontaa waxaan idin sheegayaa habaar ninka la yiraahdaa wuxuu annaga naga kasbaday haddaanu nahay beesha bariga Hargeysa afxumo uu ummadii Ilaahay kula kacay oo uu eedeeda gaar uga sii dhigay madaxweynaha mustaqbalka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ambase ra'iisul baarlamaanka Soomaaliland uu kula kacay oo mar ahayn oo laba ahayn waxa laaliyo wuxuu geystay aan jirin waxaanu siinaynaa gudoomiyaha baarlamaanka ambase mustaqbalka madaxweynaha xusbiga wadani waxaanu siinaynaa xaal iyo boolajiis iyo meel ka dhac manu kasban haddaanu nahay beesha bariga Hargeysa waxaanu ka siinaynaa afxumada habaarna waxaanu sheegayaa dhibaato wax nagu keenay anigu wax kale odhan maayee cumaamadiisu meel ay saaran tahay iyo cid dooratay iyo wuxuu u qaatay garan mayne laakiin say qaranka inaanu metelin baan anagu umada u sheegaynaa waxaana dhib nagu keenay iyo hawl iyo hadimo gaarigii Cabdiraxmaan Colmadow ee ka soo qaaday goosiga maalintii ay dalka la soo galay ee Hargeysa keenay baa dhibaatada nagu keenay kaasa ceebta iyo mudarrada nagu keenay waa kii foostada ka riixi jiray goosiga qiimihiisu intaas oo ah waxa weeyaan anagu maanta waxa weeyaan dhibaato kale u geysan mayna intaas maanta dhibaato nagu